السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داودياشنا قيمها يقايها نقمدا ميل باجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa sida Microsoft Word loogu sameeyo shaybis iyo qaab kala duwan ee loo adeegsado. soo dhawo marka la daawade. dabcan muuqaalkan waxaan xooggiisa ku saari doonaa qaabka loo isticmaalo shaybiska iyo habab kala duwan ee loo adeegsado. haddaba si aan u abuurno shape, marka hore waxaan imaanaa qaybta labaad ee menuga ee loo yaqaano insert. halkaa ku dhufo, kadib waxaad ka doorataa qaybta loo yaqaano shaybis. halkaa ku dhufo, intaa kadibna shaybka aad rabto aad kusii dhufanaysaa. tusaale kan ayaan tijaabinayaa, rectangle-ka ah ama leydiga ah. kadib waxaa ku soo raaci doonta calaamadan balaaska ah. dabcan iminka shaybka halkan waa soo gelin, balse waxaan u baahan inaan bedelo midabka shaybka uu leeyahay iyo midabka ay leeyihiin hareerihiisa. haddaba waxaan isticmaali doonaa qaybtan loo yaqaano shape styleska, qaybtan hore ee dhanka bidix taallo. dabcan qaybtan waxaa ku diyaarsan midabo gaara uu yeelanayo shaybkaaga si lamid ah hareerihiisa. dabcan mid ka mid ah ayaad ka dooran kartaa, sidan ayaan ku soo baxaya shaybkaaga. sidoo kale qaybtan loo yaqaano shape fill waxaa laga bedelaa midabka uu leeyahay shaybkaaga, gaar ahaan qaybta gudaha. tusaale midabkan ayaan dooranayaa. sidoo kale qaybtan loo yaqaano shape fill waxyaabaha ay la gaartaa waxaa ka mid ah inaad sawir soo gelin karto shaybkaaga. waxaad ka dooranaysaa qaybtan loo yaqaano picture. halkaas ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad raadinaysaa ood badagoobaysaa sawirka aad rabteen halkaad soo geliso. intaa kadib waxaad leedahay insert. dabcan iminka waa kan, halkan ayaa lagu soo geliyay sawirkaaga. kadibna geesaha un ka soo cadaade si sawirkaad u socdo qaabkiisa. dabcan haddii aad u baahan tahay sawirkan inaad ka saarto outline-ka ama wareega yar ee geesaha ka xiga, waxaad ku dhufanaysaa qaybtan loo yaqaano shape outline. halkaa jugsi, kadib waxaad imaataa qaybtan ay ku taallo no outline. dabcan sidoo kale qaybtan loo yaqaano shape fill waxaad ka heli kartaa sawirro ku diyaarsan halkan oo u noqonaya background shape-kaaga. waxaad imaanaysaa qaybta ugu hooseysa ku taal texture. halkaa ku dhufo, kadibna dhammaan background-nadan meesha kugu jira mid kaliya ka dooro. dabcan qaybtan loo yaqaano shape outline waxay gaar u tahay hareeraha sawirkaaga. dabcan waana xariiqyada xiraya sawirkaaga, isla markaana oo ah xuduud ama sohdimo. waxaad ka bedeli kartaa midabka uu leeyahay borderkaaga ama outline-ka shaybkaaga. tusaale casaanka ayaan u doorayaa. sidoo kale qaybtan waxay qaabilsan tahay in laga saaro outline-ka oo dhan sawirkaaga. sidan ayuu ku soo baxayaa sawir aan lahayn wax soodimo ama xuduudi ah. sidoo kale qaybtan loo yaqaano weights waxay qaabilsan tahay hadba cabirka uu yeelanayo outline-ka shaybkaaga. sidoo kale qaybtan loo yaqaano dashiskana waa in la dhibceeyo isla markaana outline-kii is haysta la kala jabiyo. tusaale waxaad aragtaa iminka in outline-kaaga uu noqday dhibco yaryar, isla markaana xariiqii weynaa is haystay laga dhigay qaybo yaryar oo aad isugu dhow. dabcan qaybta saddexaad ee loo yaqaano shape effectsna waxaa ku jira waxyaabo badan oo wax ka bedelaya qaabka uu ku soo baxayo shaybkaaga. haddii aad ku dhufato kan ugu horreeya ee preset, kana doorato mid ka mid ah. tusaale mid ka mid ah ayaan tijaabinayaa. sidoo kale qaybta labaad ee shadowna sawirkaaga ama shaybkaaga waxay u yeelaysaa har ama hoos ka soo baxay dhinacyadiisa. dabcan qaybtan saddexaad ee loo yaqaan reflectionna waxay shaybkaaga u samaynaysaa shayb yar oo noqod ah, isla markaana koobi u ah shaybka aad abuuratay. tusaale mid ka mid ah ayaan tijaabinayaa.
طبعا waxaad aragtaa kan waa shape-kaagii asalka ahaa, kan ka hooseeyana waa reflection-kii ama noqodka shape-kaaga. sidoo kale qaybtan afraad loo yaqaan galowna wuxuu midabyo u sameynayaa hareeraha shape-kaaga. qaybtan loo yaqaan bevel-kana waxay shape-kaaga ka dhigaysaa mid u eg ama shabaha badhan. dabcan qaybaha mid kamid ayaad ka dooranaysaa. tusaale kan ayaan tijaabinayaa, sidan ayuuna ku soo baxayaa. sidoo kale qaybtan loo yaqaan third rotation oo ka mid ah effectska uu leeyahay shape-ka waxay ka saacidaysaa in muuqaalkaaga ama shape-kaaga uu hadba ka soo jeesto jiha gaara. haddaba si aad qaal ugu soo darto shape-kaaga, marka hore shape-kaaga ayaad ku dhufanaysaa, right click ayaad leedahay, waxaadna ka dooranaysaa qaybtan ay ku taallo add text, kadib muuqaalkaaga ayaad gelinaysaa halkan. sidoo kale markaan waxaan u baahanahay inaan sameeyo dhowr shape oo iska farcama. ku dhuf isaga copy dhe ama control C taabo ama right click copy dhe, kadib waxaad dhahdaa control V ama paste. halkan ayaan dhigayaa, kadib waxaan u bixinayaa magac cusub. sidoo kale control V dhe, dhankan midig dhig. sidoo kale control V dhe, halkan ii dhig. sidoo kale control V dhe, halkan ii dhig. dabcan sida ka muuqato halkan waa hawl xisaabeed, waxayna ka kooban tahay 4 qayb oo isu geynta iyo kala goynta, isku dhufashada iyo isu qaybinta. waxaan rabaa in aan dhammaan isku xiro isla markaana aan ka dhigo hal group. haddaba markaan waxaan u baahanahay shape-ka inaan ka soo doorto fallaar muujinaysa qaybahan iyo sida ay u kala farcamaan. marka ku dhuf insert, shape iska dooro, kadibna soo qaada fallaarta. qaybta dhexe ay keen, kadibna kor u jiid. dabcan imanka waxay noqotay mid muuqata isla markaana aad loo fahmi karo. ii koobiyey paste dheh, kadib qaybtan keen. kadib waxaan leenahay madaxeeda ku soo aadi qaybtan isku dhufashada, halka qaybta dambana aad ku aadinayno si siman waliba toosan qaybta dhexe. sidoo kale mar kale paste dheh, qaybtanna keen, madaxana dhinacan u soo jeedi. haddaba si aan u sameyno group isla markaana isugu xidhno dhammaan shaybyadan, waxaad ku dhufanaysaa shaybaka mid ka mid ah, kadib waxaad dooranaysaa qaybtan loo yaqaano format, waxaadna kasii dooranaysaa qaybtan ay ku taalo selection pane. haddaba si aan isugu xidhno dhammaan shaybiskan halkan noogu yaala, waxaad qabanaysaa control, kadibna hal ayaad u dooranaysaa dhammaan shaybiska kasoo muuqanaya qaybtan. intaa kadib waxaad imaanaysaa shaybiska mid ka mid ah, kadib waxaad leedahay right click. intaa kadib waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku taalo group, kadibna waxaad leedahay mar kale group. intaa kadib waxaad rabtaa iminka in lagu sameeyey calaamadan taasoo halka dhigtay isla markaana meel isugu geysay dhammaan shaybkaagii oo dhan. haddaba groupka faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah in aad mar kaliya hal cabir wada sii karto dhammaan shaybiskaaga oo dhan. dabcan haddii aad u baahan tahay inaad groupkan baabi'isana, mar kale ayaad ku dhufanaysaa right click, kadib waxaad ka dooranaysaa group, kadibna waxaad kasii dooranaysaa qaybtan ay ku taalo ungroup, halkaas ayaad ku dhufanaysaa.
dabcan sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad laba shape iskor saari karto adiga oo kala sareysiinaya. tusaale shape ayaan soo dooranayaa. dabcan haddii aan u baahanahay shape-kan kore aan aadiyo shape-ka kale hoostiisa, isaga ayaad ku dhufanaysaa. waxaad leedahay right click, kadib waxaad ka dooranaysaa qaybtan ee ku taalo send to back, kadibna waxaad leedahay send to back mar kale. dabcan waxaad aragtaa in shape-kaagii labaad uu aaday qaybta hoose ee shape-kaaga kore. sidoo kale markaan waxaan u baahanahay in shapeskan dhex geliyo qaybtan hoose ee footerka ay ku qoran tahay page 1. halkaas ayaan rabaa inaan ku qurxiyo isla markaana aan dhigo hareeraha page-kan. marka hore laba jeer ayaan ku dhufanayaa. marka uu sidaa noqdo waxaan aadayaa qaybtan insert, waxaan soo dooranayaa shape aan rabaa inaan ku qurxiyo qaybtan. tusaale kan oo kale ayaan ku dhufanayaa, kadib waxaan imaanayaa page 1 dushiisa, halkaas ayaan ku dhufanayaa, kadibna waan ku ballaarinayaa. haddaba si aan shape-keena u dhigno hoosta, markaan qoraalka u soo sarmaro right click ayaad ku leedahay shape-kaaga, kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay wrap text, kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku taalo behind text. dabcan waana kan iminka qaabkan ayuu ku soo baxay. qoraalkeeni kor ayuu soo maray, sawirkeenina hoos ayuu maray. dabcan waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ku baratay waxyaabo badan oo ku saabsan shapeska iyo qaab kala duwan ee loo isticmaalo. fadlan isku day markaaga inaad tijaabiso isla markaana aad samayso shapes kuwan ka qurux badan.
fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh waayo like waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna waxay naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo baahi qabta kana faa'iideysan doonta insha Allah mahadsanid in ka badan milyuun jeer